دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشا وطني سوا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني دشاي سيدبا ليس قادقي كرا وطني. Hi, my name is Nima Mahmood. I'm here to represent Somalia, and this is Naima Ali. and we are both one of the few that were actually very, very lucky to go to Dubai this year to represent Somalia. We left on Saturday, January 30th, and as the journey started, we were going there just to represent Somalia, meet a few people there, and start our journey. But as we landed, we were told very unfortunate news that we weren't going to participate, but even then, it was never for sure. Also, we met different groups of girls from different places, from Germany to Minnesota, who we were lucky enough to become really close with, where we had such a great bond, and hopefully we continue to be friends from then on. We were also lucky to meet Omar Barajam, who was one of the coaches for the Somali national team. He was actually one of the greatest people that we got to meet over there. He welcomed us like we were a family. He helped us out, taught us a lot, and even throughout the barriers and everything that went in Dubai, he was always there just to support us and gave us a little hope that we were gonna play. So where did we stay? We stayed in Sharjah, which was a small little city in Dubai, and it was very, very different because living in Toronto, we don't really get to see stuff like this. So it was a very good opportunity, and stuff happens, but there's nothing we could really do. Also, it was a very great experience, and we had lots of fun thanks to Barajab and the two moms that also came with us, Fortune and Habir Keen. They gave us a good time, alhamdulillah. And overall, yes, hopefully we can go again and we can get our Somalian passports and we get to play and we'll win. Yeah, so one of the main reasons why we wanted to go there and represent Somalia is because, one, our family is from Somalia. We're always here, we claim them. Also, the fact that we are Canadian, we do believe we're also Somali because that's where our ancestors, everyone's from, where our generation started. But our main goal was to actually go and win, try to win first place. But it was very unfortunate for us for that not to happen. But you know what? Hopefully we'll get a second chance next time, and we'll go and compete even harder and win. Inshallah. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Xuseen Geedi. Waxaan ahay oday Soomaaliyeed baan ahay, oday sportina waan ahay. Waxaan rabaa marka hore
dadka Soomaaliyeed intooda badan aan ka warqabin waxa laga hadlayo bal inay fahmaan inaan xogaa yar u balbalaariyo kow maxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee tagay meesha ee banooniga ciyaarahay iyo maxay tahay in loo diido inay ciyaar waayaan in gabdhaha Soomaaliyeed ay dibadda ka tagaan marka xagga tagaana loo diido inay ciyaaraan oo qolo tiraahdo ma ciyaarayaan burburka Soomaaliya markuu dhacay waxa dhacday in la waayay ama la waayay hay'adihii abaabuli lahaa ama maamuli lahaa sportiga caalamiga ee Soomaalidu ay ka qayb gasho doorkaas waxa qaatay shacabka Soomaaliyeed haddaba waxay ku qaateen wax alla wixii ciyaar ah ee dibadda ka dhacaya ama ururka Carbeed ama Afrikaanka ay ciyaarayaan oo magaca Soomaaliyeed laga rabo inay ayaga isku abaabulaan oo ay dhaqaalaha bixiyaan ciyaartoy u aruuriyaan maadaama dalka burbur ka dhacay tani waxay daba socotay ciyaarahaas bay daba socotay dad Soomaaliyeed ayaa waxay abaabuleen 15 gabdhood Soomaaliya oo u ciyaara magaca Soomaaliyeed magaca qaranka Soomaaliyeed ku ciyaara ayagoo matalaya magaca Soomaaliyeed kana qayb gala ciyaaraha Carbeed ee ka dhacay magaalada la yiraahdo Imaaraadka ama Dubai haddaba ayaan dar waxa dhacday in dhaqaalihii iyo waqtigii iyo tababarkii iyo ururintii dhalinyarada inta xoog la geliyay dad Soomaaliyeed xoog geliyeen loo diray maxaa la yiraahdaa meeshay ku ciyaar lahayn markay tageenna laga war helay nin sheeganaya inuu official yahay ama uu xiriirka madax ka yahay inuu ku yiraahdo dadka Soomaali ma ciyaarayaan saa awgeed waxaanu leenahay gafka dhacay waxaanu uga ashtakoonaynaa haddii Ilaahay idmo bal in baaritaan lagu sameeyo la helo cidii ka dambeysay in gabdhaha Soomaaliyeed ay maaragtay ay ciyaaraan loona diido haddaba waxaan leenahay barlabaad waa in baaritaan laga sameeyaa ururka bulshada ee baarlamaanka sportiga waxaa la yiraahdaa wasaaradda sportiga waxaanu leenahay arrinta inay xaqiiqadeeda ka keenaan qofkii dambiga galayna in laga qaado maxaa la yiraahdaa talaabo sharci ah ku talinaynaa haddii Ilaahay idmo mara joojinayna haddii Ilaahay idmo waxaanu codsanaynaa in hadda kadib wixii qaban waayaan ama ay kari waayaan ummadda Soomaaliyeed ay la kaashadaan illa Soomaalida ka weyn ayaa hawsha qaban doona haddii Ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaan joogno waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto oo aan ku soo dhaweynaynay gabdhihii Soomaaliyeed ee u baxay inay ka soo qayb galaan ciyaaraha jaamacadda Carabta ee lagu qabtay waddanka Imaaraadka Sharqa gabdhihii waa soo dhaweynay alxamdulillaah ayagoo nabad qaba ay noo yimaadeen waxaan sidoo kale jecelahay in halkan tahniyad uga jeediyo hana mire gabadha la yiraahdo oo runtii isku taxallujisay gabdhahan safarkoodii wixii qarash ahaa ay u baahnaayeen inay soo abaabusho sidoo kale macallin Umar Baarajab oo runtii shaqo weyn asagana qabtay ku-xigeenka tababaraha gabdhaha qaranka Soomaaliyeed Fortune Cali Dheere xaawakiin Shukri Dalbas Maxamed Sheekh Muuse iyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka sidii wacneedii u soo dhaweeyeen gabdhaha runtii ammaan aad iyo aad u badan ayay ka sheeganayeen marka hambalyo ayaan leenahay dhinaca kale aad iyo aad ayaan uga xunnahay in gabdhihii oo waqtigooda qaaliga ahaa lumiyey iskuullo iyo shaqaba ka tegey u baxay farxadna maaragtay dheeraada qabay in ay soo matalaan waddankooda hooyo oo ay runtii farxad dheeraada ay ka muuqatay markay halkan ka baxayeen in ay dhacdo in loo diido gabdhihii inay ciyaaraha ka qayb galaan taasoo ciladeeda ugu weyn ay sida hadda aan ilaa iyo hadda aan ognahay ay tahay cilad ka timid xagga xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ayaan daro ayaan leenahay runtiina waa lagu wada xisaabtami doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waayo ummadda Soomaaliyeed muddo 25 sano ka badan ayay dhibaatooyin fara badan ku soo jirtay dil iyo isbaaro iyo wax walba loo dhigtay waqtigan xaadirka ah oo wax walba laga soo gudbay ma yeelayno wixii 25 sano lagu soo hayay ummadda in dib loo soo cusboonaysiiyo oo sportigi hadda isbaaro loo dhigto oo la yiraahdo haddaan aan la soo marin ma dhacayso waxaan waa la wada leeyahay qaranka leh Soomaaliya oo dhan ay ka dhaxaysaa
haddii aadan qaban karin oodan diyaar u ahayn cidda qabanaysa inaad hor istaagto xaq ma ahan mana lagaa yeelaayo qof laga yeelahayna ma leh waana la xisaabtami doonaa intii waxa wanaagsan soo qabatay waa in lagu abaalmariyaa intii ciddii isku dayday inay hor istaagtana waa in la abaalmariyaa iyagana oo sharciga la hor keenaa soomaalina ay meel kaga istaagtaa mar kale gabdhihii wakhtigooda siiyey inay magacooda waddankooda ku soo ciyaaraan hambalyo ayaan leenahay intii abaabul ka qayb gashay jaaliyadda soomaaliyeed ee imaaraadka kulligiin waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin walow aad shaqadiinni qaran qabsateen haddana marka aan fiirinno inuu ilaa iyo hadda uu jiro qof Soomaaliya oo hor istaagaya in dhalinyaradii Soomaaliyeed ay waddankooda u ciyaaraan waa runtii wax aad iyo aad looga naxo waxaan idin sheegaynaa kuwa isku dayaya inay bixiyaan jinsiyadda Soomaaliga ah qof aad ka Soomaalisan tahay ma leh qofka Soomaaliga runta ah waa qofka waddankiisa u danqada waa qofka isku daya wanaagga inuu sameeyo haddii labo la leeyahay mid Soomaali ma aha waxa Soomaali ah kan u danqaraya waddanka kan waddanka isku dayaya inuu magaciisa meel fiican gaarsiiyo calankiisa dunida ka babiyo kaas ayaa Soomaali ahaan leenahay ma bixisaan jinsiyadda qof bixiyana ma leh Soomaalinimada waa loo dhashaa waddaniyadana waa loo dhashaa waxaan leenahay intii barnaamijkan ka qayb gashay ayaa runtii Soomaali dhaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحالي هذا ليبان ظاهر قبيرة أنا كترسان جري عيارتوي ذي كعصلاتي عيارها وحان ما أنت أني من هالكان ربورك مقادة تورونتو إن أنك قيب قلنا سودوين تقبليه مثلا مقع قرن كصوماليات أو دبي تجي أو عيارها هيدين كقيب قلان آد بأوفر حسنايين run ahaantii sida loo soo dhaweeyay maada ka gaarto dadkii aad meesha ka soo dhaweeyay oo ugu horeeyo macallin baarajib ugu horeeyo iyada cid kastoo ka qayb qaadatayna waa ku ammaanaynaa macnihii farxad aan la soo koobi karana ka muuqatay wejiyadooda iyo rayn marka waa wax aad u wanaagsan waxaa laakiin ayaan darro ah shakhsi sheeganaya inuu madax ka yahay xiriir in uu arrimaha noocan oo kale ah uu hor istaago oo caqabad ku noqdo waa ayaan daro sida aan warar ku maqlayno in macnihii gabdhihii ahayd in loo hirgelin waayo inay ka qayb galaan tournamentiga ay dhacday in warqado laga daba qoro la yiraahdo Soomaali ma tihiin waxyaabo noocaas waa wax aad u foolxun annaga carruurta aan dhalin halkan muddaan waxaan ku beeraynay inay Soomaali yihiin haddii markay baxaan oo ay iskuuladooda intay ka tagaan dabcan tartanada inay ka qayb galaan qolooyin kaloo officialska ama dawladda ka tirsan ay yiraahdaan Soomaali matiin waa ayaan daro waa wax aad looga xumaado dadka soo qaban qaabiyay ciyaarahan ammaan badan oo soo jeedinaya ay ugu horeeyeen Cabdidheere dhamme Cabdirasaaq dhabar yare oo ah dadkii lagu yaqaan sportiga basketballka lagu yaqaan shaqo fiican run ahaantii qabteen waana ku ammaanaynaa laakiin waxa ayaan daro oo xumaan ah in arintan ay sidii hadda u dhacdo kale ay u dhacdo waa wax aad u foolxun waliba waxaan maqlay kharashaadkii wax xiriirka ay bixinayeen ma ahayn waa wax ay shacabka Soomaaliyeed kuwa gudaha joogay dibadda ay ugu yabooheen oo ay bixinayeen iyo dawladda Imaaraadku ay bixinaysay ma wax kharash ku baxay kaliya ayaga kaliya wax laga rabay ogolaansho kaliya laga rabay tiin hor in la hor istaago waa wax aad u foolxun aanan macnaheeda aanan garan karin aadan uga xunahay aas ciyaartooy ahaan aas Soomaali ahaan aas aabba ahaan aadan uga xumahay macnihii arrimahaas oo kalena waxaa loo baahan yahay in laga fiirsado dadkii ka dambeeyay waxaan inay dhacaanna tallaabo sharci laga qaado si aysan waxyaabaha u dhicin ciyaaruhu waa waxyaabaha ugu muhiimsan shacabka iyo dhalinyarada waliba gaar ahaan waxaa loo baahan yahay in la dhiirigeliya loo baahan yahay in la hor istaago caqabad lagu noqdo looma baahna waxaa waliba isweydiin mudan marka sababta gabdhuhu ciyaari waayeen waxaa qiil looga dhigay inaysan Soomaali ahayn sababtoo ah waxay wataan baasaboorro ama ay ku dhasheen Canada waxaan rabaa inaan xasuusiyo shakhsiga qiilka uga dhiganaya arrintaas in prime ministeradii waddanka soo maray ama ka hadda jooga Umar Cabdishiid uu yahay Canadian citizen uu yahay
ma waxay ka bilaabanaysaa gabdhihii ciyaarahay ka bilaabanaysaa in la yidhaahdo Soomaali ma tihiin dhalinyaradii qurbaha ka yimid mase markii wasiiradii ugu badnaa ay Canadian yihiin prime ministeradii waddanka soo maray qaarkood ay Canadian iyo Mareykan ay yihiin waa ayaan daro waana qiil aad u xun oo ahayd in hadda ciyaaraha lagu bilaabo waana aadan u dhaleecayna arrinta noocaasa annaga dhalinyarada waxaan ku encourage gareynaa inay Soomaali yihiin haddii shakhsi sheeganaya mas'uul Soomaaliyeed oo yiraahdo adinku Soomaali ma tihiin ayaduna waa ayaan daro waxyaabaha noocaas oo kale in laga waantoobi u baahan yihiin arrimahaasna aanay mar dambe dib u dhicin laakiin aanan noqonin wax la iska sahlado waa arrin aad u fool xun waa arrin aad u adag in shakhsiga arrinta mas'uul ka ahaa xiriirkoo dhan dambiga ma wada saaraya aniga laakiin waxaan aaminsanahay shakhsiyaad ama shakhsi inuu waxaan mas'uul ka ahaa in arrinta laga wada hadlo lagala hadlo apologina uu ka bixiyo mar dambana aanay dib u dhicin carruurtu waa Soomaali dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo culture ahaan waa annaga ku barbaarin Soomaalinimada inuu qof yiraahdo maanta maxay ahayd waxa la idinkaga soo celiyay tartankii because of Soomaali ma tihiin waa wax ayaan darro ah waxaan halkan ku soo dhaweynaynay qayb ka mid ah gabdhihii Soomaaliya oo qayb galay tartanka kubadda kolayga ee Jaamacatul Carabta lagu qabanayay inkastoo ay nasiib daro noqotay in ay maartay aan ka qayb galin arintaasna ay ka dambeeyeen dad maartay mas'uuliyiinimo sheeganaya xiriirka kubadda kolayga ayagoo aan ka fiirsan konsulsiga arintan ay leedahay ayay waxay yiraahdeen dadkani ma matali karaan magaca Soomaaliyeed ayagoo qiil ooga dhigay inayna Soomaali ahayn maadaama ay wataan ka yimaadeen waddan kale ayna wataan baasaboor ajnabi ah su'aasha meesha taal waxay tahay haddaynan gabdhahaas yarka oo shaqadoodii iyo iskuuladoodii iyo waalidiintoodii laga soo kaxeeyay waqti badan la soo galiyay dad badan ay soo abaabuleen in la yiraahdo maaragtay niyada lagu sheego inayna Soomaali ahayn waxaan rabnaa inaan weydiino gudoomiyaha haddii ayaga Soomaali ahayn yaa Soomaali ah anigoo magacayga la yiraahdo Guuleed aad iyo aad ayaan arintan uga xumahay ka midna shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Toronto wallahi waxaan dareemayaa inay tahay fursad aad iyo aad u qiimo badan oo ay dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ay garteen inay ka qayb qaataan dhisidda waddankooda ayagoo maartay uga qayb qaadanaya qaybo kala duwan ayna soo organize gareeyaan in magaca Soomaaliyeed gaarsiiyaan meel aad iyo aad u muhiimsan in ka qayb galaan tartanada internationalka laakiin waxa dhacday in nasiib xumo noqoto dad aan maartay aan xilkasnimadooda ay meel dheer jirin ay ka soo horjeestaan qorsheynta iyo waqtiga iyo timeka ay galiyeen ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto si ay u abawlaan magaca Soomaaliyeed ay meeshaas ay geeyaan arintani waxay tahay arin loo baahan yahay dawladda Soomaaliyeed inay maartay ka qayb qaadato sidii wax loo qaban lahaa in uu dhixin future-ka dambe arrimo sidaan oo kala dad macnaha ayagu wata aniga waxaan kaliistalinimo oo ka fiirsan waxyaalo badan waana nasiib xumo macnaha waxaan garan laanahay waxaan u sheegi doono jiilka dambe oo soo koraya hadiiba ay arrimaha noocan kala ay sii socdaan waxay noo saalaysaa dad badan ay maartay naga baxaan وانا أرين هذه هذا لغنه feel maartay very sorry macnaha gabdhaha Soomaaliyeed oo waqtigooda iyo timekooda gashay inay ka qayb qaataan magaca Soomaaliyeed ay maartay wadaan calanka Soomaaliyeed geeyana meel walba oo maartay ku jiro tartan وانا أرين هذه هذا وفرحان سيكون عندنا كل أنصر كذا وحن كسوينا قدوميها عداني وسووا نك هذا مارتي أرنتو فرتو كتاجنتاي
dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa wadani loo dhashaa wadani sawaa layska dhigi karaa wadani loo dhashaa wadani sawaa layska dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa wadani loo dhashaa wadani sawaa layska dhigi karaa wadani loo dhashaa wadani sawaa layska dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa wadani loo dhashaa wadani sawaa layska dhigi karaa wadani loo dhashaa wadani sawaa layska dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba laysaga